waqooyiga dalka Itoobiya. Dadku waxa ay wajahayaan macluul aad u daran iyadoo uu socdo dagaal sokeeyo oo u dhaxeeya Tigreega iyo ciidamada dawladda Itoobiya. Waxa ay boobeen cunooyin badan oo ay ku jiraan cunno loogu talagalay caruurta nafaqadarrada hayso. Dagaal socday in ka badan sanad ayaa dad kor u dhaafaya 9 milyan waxa ay u baahan yihiin gargaar cunno oo degdeg ah in la gaarsiiyo sida ay sheegayso qaramada midoobe. Afhayeen u hadlay qaramada midoobe ee maamula WFP ayaa sheegay in shaqaalahooda ku sugnaa halka uu boobka ka dhacay ay la kulmeen dhibaatooyin. Afhayeenka ayaa sidoo kale ciidamada dawladda ku eedeeyay in ay qabteen 3 ka mid ah shaqaalaha WFP ee la socday gawaari siday gargaar isla markaana ay u adeegsadeen gawaarida hawlahooda gaarka ah. dawladda Itoobiya ayaa dhawaan shaacisay in ay magaalooyin ka qabsatay dagaalyahanada Tigreega balse falaagada Tigreega ayaa sheegay in aysan meelna kala wareegin. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa ciidamadiisa u diray gobolka Tigreega si ay ula diriraan TPLF kadib markii uu sheegay in ay weerareen saldhigyada ciidamada. Dagaalkan ayaa waxa uu galaaftay nolosha kumanaan qof halka ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof. sidoo kalena 100,000 oo qof ay wajahayaan macluultii ugu darneyd.